haddaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordha xaaladda gobolka bariga dhexe. qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maraykanka iyo xuutiga oo weeraro kala duwan ku qaaday maraakiib maraysay Hormuz iyo Bab al-Mandab. xaaladda bariga dhexe oo mar kale cirka gashay. haddaba tafaasiil ku saabsan weerarada maraykanka iyo xuutiga ay kala qaadeen. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa Bakistan oo wafdi heer sare u dirtay magaalada Tehran ee caasimadda Iran, iyagoo halkaa wada hadallo kula qaadanaya mas'uuliyiinta dalkaas. ujeedada safarku maxay tahay? dhanka kale Bakistan oo war rasmi ah ka soo saartay halka ay marayaan wada xaajoodka lagu doonayo in heshiis ay ku gaaraan Iran iyo Bakistan. qodobadaas aynu barnaamijkeena labaad maanta oo talaada ku soo qaadanaynaa. intaan ku jirnana wixii warar soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan dalka Kenya ee geeska Afrika iyo magaalada Nairobi, inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi. waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road. aad aragto wuxuu ka bilaabanayaa 4 bedroom DSQ, 3 bedroom DSQ iyo 3 bedroom DSQ iyo 2 bedroom DSQ. adeegii guri lahaa oo dhanna waa wataa. shirkaddu maanta waxay idiin soo gudbinaysaa qiimo dhibid aan ugu magac daray hoygu waa muhiim hanti yeelo oo soconaysa 5 bilood. hadda ka hor qiimo dhibidii aan soo celinay 2 bilood ahayd, walaalo badan baa ka faa'iideystay oo dal iyo dibadba jooga. haddana mar labaad waan soo celinay. waxaan ugu baaqahayaa bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta inay ka faa'iideystaan adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud. waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa, gaar ahaan magaalada London, in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaara ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee aduunkuna ma tagtaan. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa talaado, taariikhduna waa 11 bisha Agoosto sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaynu idinkugu haynaa akhbaaraadkii iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa 2 weerar oo kala duwan oo maraakiib nagta looga saaray ayaa waxay ka kala dhaceen goor dhaweyd Hormuz iyo Bab al-Mandab. waxaa yaab leh labada markab ee la ku kala weeraray labada dhinac. waxaa weeraray mid Maraykanka, midka kalena xuutiga. haddaba marka maraakiibtan maxay ahaayeen? maxayse labada dhinac u kala weerareen? haddaba tafaasiil ku saabsan sheekadaas ayaan idiin hayaa. haddaba waxaynu ka hormaraynaa wargeyska la yidhaahdo Wall Street Journal ayaa goor dhaweyd qoray warbixin uu leeyahay ciidamada Maraykanku waxay sheegeen inay rasaas ku fureen oo ay weerar ku qaadeen markab la sheegay inuu isku dayayay inuu jabiyo xayiraadda Maraykanku ay ku soo rogeen Iran. wargeyska Wall Street Journal wuxuu ka soo xigtay arrintan mas'uul Maraykana. dhanka kale waxaa la sheegayaa in ciidamada Maraykanku ay markaasi rasaas ku fureen. haddaba safiinada ama markabkan ayaa wuxuu watay calanka Panama, wuxuuna isku dayayay inuu markaasi khilaafo
xayiraadda maraykanka uu saaray dekadaha iiraan iyadoo weerarkaasi uu dhacay goor dhoweyd maanta oo talaado ah. haddaba helikobtar ciidamada maraykanku ay leeyihiin ayaa la sheegay inay rasaas huwisay markabkaasi, kaasoo ay sheegeen inuu iska dhaga tiray digniino ay ciidanka markii hore u direen. meeshaas marka waxaa leeyahay markabay maraykanku halkaa ku weerareen, helikobtaray u qaateen, digniinteenuu diideeleen. marka sababta loo weeraray markabka muxuu yahay? sababta maraykanku markabka u weeraray, markabku wuxuu iska dhaga tiray xayiraadii maraykanku saaray dekadaha iiraan. wax kale dembi kale ma gelin markabka keliya wuxuu iska dhaga tiray oo uu rabay inuu tago dekadaha iiraan, maraykanka warkiisuu diiday. taasaa soo baxday hormus. iiraan marka ilaa hadda iyadu wax warah oo arrinkaa ay ka soo saartay ma jiro, laakiin sheeko kale oo yaab leh oo jawaab camal u eg ayaa ka dhacday baabalmandab. xuutiga iyaguna markab kaley nagta ka saareen, warkeenuu diiday, dekadaha sacuudigu u socday. meesha laysku ciyaaraa socoto wax meesha maraykanka hadalkiisia la qaaday, waa la bedelay bis asoo af carabi ah la soo saaray. asaga wuxuu yidhi wuu iska dhaga tiray xayiraadii aan saarnay dekadaha iiraan inuu jabiyuu rabay. xuutiguna maxay leeyihin wuu iska dhaga tiray xayiraadii aan saarnay dekadaha sacuudiga inuu jabiyuu rabay. nagtaa marka ka saarna anagana. marka maraykan ma dhihi karaa xuutiga marka waxaa tahay burcadbadeed tuugaa tahay adba waa kanaa meeshaa isbaara kuu taallaa, markabkii soo mara nagtaa ka saaraysaa, annagana intay noo taalla. haddaba markaan idintuso sheekada iyadana ku saabsan waxa ka dhacay baabalmandab iyo saacadihii lasoo dhaafay. haddaba wararkii ugu dambeeyey marka waxay sheegayaan in weerar uu ka dhacay baabalmandab, waxaana la sheegay in 4 qof oo la socday markab ay ku dhinteen kadib markii xuutigu ay weerareen markab marayay baabalmandab. haddaba wasiir ka tirsan dowladda yeman ayaa xaqiijiyey in 4 ka mida badmaaxiyiinta markabka la socday la weeraray ayaa halkaa ku dhintay, sidoo kale 4 kalena way ku dhaawacmeen. xuutiga oo weerar ku qaaday markab ganacsi oo marayay baabalmandab. weerarkan ayaa la sheegay in ay markaa 3 ka mida dadkii dhintay ay u dhasheen Bakistan, halka midka kale ee markabka ku dhintay uu isna u dhashay Indonesia. 4 qof ee xuutigu ay dileen, 4taba waa dad muslimiin ah sida la leeyahay. xuutiga markabkii sacuudiga warkiisa diida sacuudiga u socda oo meesha dekadaha sacuudiga ka yimaada ama u socda nagtu ka saaraya asagan. hadda marka waxaa leeyahay xuutiga 4 uu dilay asaga, maraykanka wuxuu dilay malima la soo sheegin, laakiin xuutiga 4 uu dilay, 3 Bakistan iyo mid Indonesia. marka 4ta uu dilayba waxay leeyihiin warbaahintu waa 4 qof oo muslimiina. xuutiga macnaha waxa uu samaynayo muslimiinu ku dhibaataynayaa laga wadaa, sacuudigu uu dhibaataynayaa. marka xuuti waxaas asaga wuxuu leeyahay ma qorna annaga, sacuudiga isagaana soo ataagay, isagaa na gardaraystay, annagoo heshiisa naga dhexeeyo. diyaarad iiraan nooga timid oo sanca kusoo degayso carqaladeeyay garoonkii u naga weeraray. maxaa dhacay markaa dhaane lama ogolu yidhi wax diyaarada annaga aan ogolayn inay idiin soo degaan. ahlan saas miya? haye waaya waa noo taalla. sidaasaa marka dagaalkoodii horta ku bilowday. marka hadda warkaasaa marka isaguna la leeyahay xuutigu iyaguna markabkaas ayay nagta ka saareen oo ay garaaceen. waaye marka sheekadaasu marka waa baabalmandab iyo hormus wixii ka dhacay goor dhoweyd ayaanu idiin soo gudbinay. wixii kaloo tafaasiila soo baxa barnaamijyadeeda kale aan kusoo qaadan doonaa. dhanka kale Bakistan wafdi heer sare u dirtay Tahraan. maalmahan oo dhan barnaamijyada ka sheegaynay Bakistan waxay casuumaad u dirtay Caraaqji, Qaalibaaf, imaada Bakistan imaada.
nimankii iiraaniyiinta cagawareejis maba tegayaanba bakistaan. hadda bakistaan waxay soo dirtay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha. waxay tiri ninkii caraaqji ah waa noo iman waaye tahraan ku qabo. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay, caraaqji oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Bakistaan. kulankaasna wuxuu ka dhacay magaalada Tahraan. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxaa la sheegay inuu la kulmay ninka la yiraahdo Abbas Caraaqji, inuu la kulmay wasiir daakhiliyaha Bakistaan Muhsin Naqawi, waxaana ay ku wada kulmeen Tahraan iyagoo ka wada hadlayay arrimo muhiim ah oo ku saabsan wada xaajoodka wada hadallada. marka meesha waxaa ka jira warka Iiraan meelu saarayaan wuu cad yahay. nimanka ilaalada kacaanka Iiraan warkooda way sheegeen, waxay yiraahdeen shuruudaheena haddaanu Maraykan aqbalin meeshan yaa la isku daalin, waa noo xirnaanay Hormuz. waatan lalahaa Cumaan Iiraan heshiye miiskay saaran tahay, qadara tiri kana yiri ilaa hadda wax heshiisoo la gaari maarteen marraadii shay waxaad Iiraan beel u yaalaan baba yeelayso ilaa waxeeda la ogolaado. kow caraaqji marka muxuu samayn karaa? kaligiis inta Bakistaan baxo muu heshiis iska geli karaa? may waa inuu raacaa maamirta Mujtaba Khamenei in la raaco. Mujtaba Khamenei iyo ilaalada kacaanka Iiraan waa nimanka wadakaysta waay. marka nimankii Bakistaaniyiinta marka hadda waxay soo raadiyeen wada xaajoodka in la sii wado. waxaa leeyahay marka barashar ama culays Maraykanka uu soo saaray Bakistaan waay, naga dhameeyo, waxaa naga dhameeyay leey Bakistaan ay ku soo Bakistaanti marka waxay u yeertay caraaqji iyo imaaday dhaad way fahmeen marka inaan meesha waxba ka soo baxay. Maraykanna mowqifkiisa taagan yahay, Mujtabana mowqifkiisa taagan yahay. marka caraaqji maxay ka qabanayaan meesha? hadda marka wafdigii Bakistaan Tahraan u yimid. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markasu Daaru Taqwa waxaa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadin dugsiga markasu Daaru Taqwa. waxaa waalidiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Ingiriiska iyo guud ahaan caalamka laydin hayaa fariin ka timid maamulka iyo macallimiinta iskuulka Beacon International Academy. iskuulkan waxa uu ka saacidayaa caruurta waxbarashada International GCSE-ga si ay caruurta u helaan aqoon aad u sareysa isla markaana ay ugu biiraan jaamacadaha caalamiga. waxay sidoo kale Beacon International Academy idin diyaariyeen in caruurta laga dhisi doono akhlaaqda dhinaca diinta Islaamka iyagoo la bari doono Quraanka, luqadda Carabiga, axaadiista iyo weliba af Soomaaliga. fadlan la xiriir website-ka, telefoonka wac, isna diiwaangeli si caruurtaadu ay uga faa'iidaystaan fursaddan iyagoo jooga gurigooda. online ayay ku baran karaan. macallimiin khibrad leh ayaa la idin diyaariyey. sidoo kale waxaa la soo xiriiri kara dadka Soomaalida ah ee meel kasta ee dunida jooga oo iyaguna doonaya inay aqoontooda luqadda ay sare u qaadaan. la xiriir oo hadda wac, isna diiwaangeli Beacon International Academy. dhanka kale waxaa isaguna waraysi bixiyey wasiirka gaashaandhigga ee Bakistaan. marka ugu dambeyntii wasiirka gaashaandhigga ee Bakistaan ayaa waraysi bixiyey. wuxuu leeyahay Bakistaan waxay tiri Maraykanka iyo Iiraan waxay qarka u saaran yihiin inay markaasi isku soo dhawaadaan oo heshiis ay wada gaaraan daa'ima. wasiirka difaaca Bakistaan ninka la yiraahdo Khawaja Asif wuxuu u waramay wakaaladda wararka la yiraahdo Bloomberg ee waddanka Maraykanka. wuxuu siiyey waraysi maanta Talaada. wuxuu sheegay Maraykan iyo Iiraan inay aad isugu soo dhawaanayaan hadda oo ay ku dhow yihiin inay nooc tartiib ah ama isku dubaridida ay hadda ka heshiin doonaan dagaalka u dhaxeeya labadooda oo macnaha dagaalka uu dhammaan doono. waxaana uu rajo weyn ka muujiyey in hawshani ay dhammaan doonto maalmaha soo socda oo aadka u dhow in heshiis la isla gaari doono. warkaasina marka waxaa sheegaya ninka la yiraahdo wasiirka gaashaandhigga ee Bakistaan. marka meeshan marka dadaal culus socda.
bakistan iyo marka waxaa leeyahay iyo qatar way isqaybiyeen. bakistan hawshan maraykanka iyo iiraan iyo inay maaragtay hawsha heshiis la gaaray culays ka saaraysa hadda wafuudeed diraysaa wafdi ay usoo dirtay halkan qatar oo iyadana dhexdhexaadiyaasha ku jirta iyaduna waxay sii wadaa qatar wadahadaladii cumaan iyo iiraan u dhexeeya iyaduna halkaas ku mashquulsantay. hadda goordhoweed waxaa arkaya qatar oo war soo saarta leh mar dhow heshiisay iyaguna gaari rabaan cumaan iyo iiraan. marka waxaasoo dhan waa iska huuhaa waaye. iiraan warkeedu waa cad yahay. shuruudayda yaal waa ku iman waa heshiinaynaa. shuruudayda maxaa ka mid ah hormus in looga haro, lacag baada ka qaadato maraakiibta canshuura, waxay rabto samayso isbuucida habayso. maraykanna dee taas mar raba waxaa leeya waa jabtay waa lagaa adkaadee le. iiraan oo waxba qaadayna u tagtay iiraan oo lacag qaadayso taajira kasoo tagtaa le dagaalka saas hadduu ku dhammaado. marka sheekooyinkaa marka waa isku waasheen. barnaamijkaygii labaad waa naga itaa haddii alla idmo. wixii kaloo warara soo kordha barnaamijka kale ayaynu iskula socodsiin doonaa. intaan mar kale kulmayno laagareeya oo sheergareeya barnaamijka. nabadgelyo.